Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha waxaynu soo qaadan doonaa Harry Kane oo bandhig aan caadi ahayn ka sameeyey koobka adduunka xulkiisana dhabar ka saartay hadday tahay markii kugu horeysay subscribe noo saar hadaad hore noola joogto like share noo dheh waad mahadsan tahay aan ku bilaabnay Harry Kane ayaa mar kale noqday geesiga England kadib markii uu dhaliyay 2 gool oo muhiim ah kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Congo taasoo England u dirtay wareegga 16 ee koobka adduunka inkastoo England ay weli leedahay dhibaatooyin gaar ah booska daafaca midig haddana hal shay kama maqna ciyaaryahan heer caalami ah oo go'aamin kara ciyaarta sida Harry Kane ayaa mar kale cadeeyay inuu yahay ciyaaryahankaas England ayaa mar kale gool laga hormaray waana markii lixaad oo xiriir ah oo ay sidaasi ay ka dhacdo kulan bugbaxa oo tartan weyn ah markasta waxay helaan haliye soo badbaadiya sida Harry Kane kadib bandhig aan fiicnayn uu ka sameeyay Euro 2024 sababo la xiriira dhaawac dhabarka ah haddana wuxuu soo laabtay qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa waxaa sidoo kale si weyn u caawiyay Anthony Gordon oo sameeyay 2 caawin oo muhiim ah Jude Bellingham oo dadaal badan muujiyay Declan Rice oo si kumeel gaar ah ugu ciyaarayay difaaca midig laakiin goolkii labaad ee Kane oo si xoogan ugu tuuray saqafka shabaqa ayaa muujiyay tayada gaarka ah ee uu leeyahay inuu ciyaarta kaligiis go'aamin karo tababaraha England Thomas Tuchel ayaa yiri taasi waa waxa aan ka filaynay Harry Kane isaga ayaa sidaas ka filaya kulamada adag labada gool ee uu dhaliyay waxay ka dhigaan Kane inuu gaaro 13 gool oo koobka adduunka ah isagoo ka sarmaray Pele liiska gool dhaliyaasha taariikhda sidoo kale wuxuu hadda leeyahay 5 gool koobka adduunka iyo 72 gool oo xil ciyaareedkan uu dhaliyay kooxda iyo xulka inkastoo ciyaartu kaliya 5 mar uu taabtay qaybtii hore balse daqiiqadii 34 ayaana toogashadiisii ugu horeysay ee goolka uu sameeyay sidoo kale Gary Neville ayaa yiri haddii laga hadlayo weeraryahanka ugu weyn ee England 100% waa Harry Kane wuxuu ka sareeyaa haliyeyo ay ka mid yihiin Aden Shearer iyo sidoo kale Gary Lineker si uu Harry Kane ugu guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or-ka in ay England ay tahay inay ku guuleysto koobka adduunka England ayaa wareegga 16 la ciyaari doonta Mexico kulan adag oo ka dhici doona garoonka Estadio Azteca rajada ugu weyn ee England waxay mar kale noqon doontaa Harry Kane oo loo arko furaha ay ku gaari karto hanashada koobka adduunka